bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka kulanka Kalsan TV barnaamijkeena ayaa waxaa marti noogu ah oo aan wareysi la yeelanaynaa Sufyaan Sheekh Axmed oo kamid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed waxaana barnaamijka markaasi wareysiga uu ku saabsan yahay qaar kamid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed oo kamid yahay Sufyaan oo soo bandhigay calan cusub oo Soomaaliyeed iyo astaan cusub oo uu yeelan doono qaranka Soomaaliyeed iyadoo markaasi aqoon-yahanadu ay soo saareen cilado uu leeyahay calanka Soomaaliya iyo astaanta qaranka ee Soomaaliya Sufyaan marka hore dadka ku daawanaya bal waxaad u soo bandhigtaa taariikhdaada marka hore waa kuma Sufyaan Sheekh Axmed bismillahir rahmaanir rahiim اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaan marka hore jeclahay inaan salaamo dhammaan dhageystayaasheena sharafta leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam ya bahda Kalsan TV khaasatan wariyaheena aweysfoodo waa mahadsantihiin waxaan rabaa horta marka ugu horeysa inaan saad i weydiisaba aan u sheego dhageystayaalkeena Sufyaan waa kuma anigu magacayga saad u sheegtay waxa la yiraahdaa Sufyaan Sheekh Axmed waxbarashadaydu waxa weeye waxaan dugsiga hoose dhex uga soo baxay Soomaaliya kadibna waxaan nasiib u yeeshay inaan galo Xalane oo dugsiga sare uga baxay luqadda Carabiga waxaan kadib u baxay qurbaha oo muddo soo joogay waxaan dugsiga sare mar labaad ku celiyay Canada wadanka la yiraahdo Western Technical Commercial High School Toronto ku yaala waxaan ka soo tagay Canada waxaan imid America waxaan nasiib u yeeshay inaan hadana aado Grossmont College oo ku yaala La Mesa California hadana waxaan u bedeshay jaamacadda la yiraahdo UCSD University of California San Diego meeshaas ayaan ka qalin jabiyay waxaan helay scholarship ama waxa la yiraahdo mihna oo ardaynimo waxaa la ii diray wadanka Spain waxaan mar kale ku soo qalin jabiyay jaamacadda la yiraahdo Complutense ee ku taala magaalada Madrid caasimada wadanka Spain waxaan bartay waxa weeyaan cilmiga siyaasadda international politics and international relationship iyo luqadaha gaar ahaan luqadda Englishka iyo luqadda Spanishka kuwaas waa takhasuskayga Sufyaan Waakaas waa maasantahay Sufyaan waxaan filayaa daawadayaasha inay wax badan ay ka fahmeen taariikhdaada oo kooban marka Sufyaan hadaan u guda galno barnaamijkeena ku saabsan calanka iyo astaanta Soomaaliya Sufyaan markaan dib u eegno taariikhda calanka Soomaaliya laga soo bilaabo qarnigii 9aad ilaa qarnigii 13aad gaar ahaan xilligii ay boqortooyadii Soomaaliya ka jirtay xarunteeda magaalada Saylac iyo boqortooyooyinka kale iyo maamuladii kale ee Soomaaliya soo maray sida Cusmaaniyiinta bal waxaad faahfaahin ka siisaa daawadayaasha calamadii ay isticmaali jireen xilligaasi kahor gumaysigii Talyaaniga iyo Ingiriiska wariifoodayaada u mahadsantahay runtii waa su'aal waxaan u maleynayaa shacabka Soomaaliyeed aysan weli is weydiin arrintaasi waana arrin muhiim waxayna muhiim u tahay waxyaabo fara badan oo jecelnahay inaan kala hadalno shacabka Soomaaliyeed aasna u ah jiritaanka qarankeena Soomaaliyeed aan ku bilaabo 700 sano qarnigii 7aad waxaa jirtay waxaa jirtay boqortooyadii ugu horeysay la jiray Ifaat caasimada oo ahayd magaalada Saylac boqortooyadaas waxay lahayd calan isugu jira guduud iyo cadaan laba qaybood ah oo ay dhexda uga taalo astaanta lagu yaqaan islaamka oo ah bisha isla markaasi Ifaat muddo ay joogtay muddo kadib waxaa kala wareegay xilkii boqortooyada la jiray Cadaal oo ka talinaysay ayadu laga bilaabo Soomaalida dhinaca Soomaaliya waqooyi oo dhan marka lagu daro Djibouti qayb kamid ah Ethiopia qayb kamid Ethiopia oo hadda dhulka la yiraahdo Harar iyo dhulkaas ilaa iyo inay soo gaarto qaybo kale oo koonfurta Soomaaliya soo galay ayagana calankoodu waxay sii wadeen calankii ay hore u lahaayeen boqortooyada Ifaat ayada boqortooyada Cadaal waxay sii wadeen calankii isla calankii ma aysan bedelin waayo calankaas wuxuu ahaa calan ka turjumaya islaamnimada iyo dadka wadanka u dhashay waa calan guduud ah iyo cadaan iyo ay ku taalo astaanti islaamka oo bishiya waana calanka maantay calanka waqooyi reer waqooyiga ama Soomaaliland calanka isticmaasho maamul goboleedka Soomaaliland calanka uu isticmaalo uu ku beesgareysan yahay because calanka Soomaaliland isticmaalo waxa ku taala tawxiidkii waxa ku waa guduudkii iyo cadaankii qaateen cagaarna oo ku daray marka taas waxay ahayd boqortooyada Ifaat iyo boqortooyada Cadaal calanka noocaas isticmaal jiray dhinaca kale waxa ka jirtay boqortooyadii ahayd boqortooyada Ujuuraanka
waxay lahaayeen calan u samaysan triangle wuxuu ahaa guduud iyo jaalle oo isla markaasna calaamadda bisha ee islaamku asna ay dhexda uga jirto waxay talinayeen 1200 ilaa 1700 waa almost waxa weeyaan waqti aad u dheer waxay ka talinayeen koonfurta Soomaaliya oo dhan ilaa iyo qaar kamid ah Ethiopia inay gaareen waxay awood u yeesheen boqortooyada Ujuuraanku inay difaacaan weerarkii Oromada inay difaacaan weerarkii Boortaqiisku uu ku soo qaaday oo ay si baan u jabiyaan waa boqortooyadii dhistay masaajidka aan naqaano Cabdulaziz ku yaala Soomaaliya calanka ay lahaayeen waxa boqortooyadaas marka ayaga jabiyay oo difaacay boqortooyada la yiraahdo boqortooyada Galadi iyo boqortooyada la yiraahdo Hiraab waxay u talinayeen 200 sano ay waxay u talinayeen Kismaayo ilaa ay hooyo inta u dhaxaysa dhinaca laga bilaabo baar dheere iyo dhinacaasna waxa la wareegay xilkii oo qaatay boqortooyada la yiraahdo Galadi caalamada ay isticmaalayeen Galadi waxay samaystay calan cagaar iyo blue ah buluuga waa blue oo tiq ah ma aha buluuga Soomaali isticmaalo laakiin waxa ku jirta xidiga hal xidiga dhexda uga jirtay boqortooyadii Hiraabna waxay sii wateen oo sii isticmaaleen calankii boqortooyada Ujuuraanku ay lahayd ay sii wadeen oo awoodii ay ku haysteen waxa jirta calamo kaleeto oo Soomaaliya ka jiray waxa jirta boqortooyada Majeerteenka oo iyadu ku tirsan dhulka Majeerteenka uu degan yahay calankeedu guduud buu ah waxa jirta boqortooyada Warsangeli waxay lahaayeen qorax soo baxaysa iyo calan cadaan waxa kale oo jirtay daraawiishta oo runtii Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan uu hogaaminayay waxay lahaayeen calan cagaar iyo guduud oo leh wax la dhamays ama wareeg afar gees wareegaya leh calamadaas oo dhan ayaa jiray waxa sidoo kale marka cajiib amaantay inaan taariikhda noocaas aanan xusin oo laga gudbo inaan laba soo qaadanba wadan waxa la rabaa markii uu xornimo qaato ama dagaal uu galo anigu ma aaminsani in la gumaystay balse sida dadku u dhigaan hadii aan dagaal galno oo aan ka guuleysano dadkiina soo weeraray sidaan anaga noo suurta gashaba in aan ku laabano dhaqankeeni iyo calamadii hore aan isticmaali jirno oo ayagii aan dib u soo laanno sida ay sameeyeen Somaliland maamul goboleedka Somaliland ay sameeyeen waxa nasiib daraa inaan qaadano calan aan ugu yeerno maanta calanka Soomaaliya Sufyaan runtii waa taariikh aad weyn oo dadka Soomaaliyeed ay si aad ugu baahnayeen isla markaana taariikhdaasi waa mid si aad ah in loo qiimeeyo mudan marka boqortooyadii Cusmaaniyiinta sidoo kale saameynta ay ku lahaayeen Soomaaliya xilligii hore runtii boqortooyada Cusmaaniyiintu markii boqortooyadii Cadaal ay jabtay oo meesha ay ka baxday waxa la wareegay boqortooyadii Cusmaaniyiinta la wareegay ama Ottoman Empire waxa la dhaho waxay keensadeen calanka hadda Turki ay isticmaasho oo guduud ah oo xidig bishii ay dhexda uga jirta ay keensadeen boqortooyada Cusmaaniyiintuna runtii Ottoman Empire kama aysan marnayn markastaba Soomaalida dhaqankeed Axmed Gurey marka uu ilaa iyo tagayo Ethiopia oo Ethiopianka boqorkii uu gelinayo hareereynayo boqorku Ethiopianku wuxuu u yeertay ciidamo Boortaqiis Axmed Gurey wuxuu u yeertay ciidamadii Cusmaaniyiinta oo Turkiyiinta ah marka Turkigu runtii wayna la joogeen markasta dhaqan ahaan iyo diin ahaan waxayna taageeri jireen wadanka Soomaaliya iyo boqortooyadii Zeylac ka jirtay ama ha ahaato Ifaad ama Cadaala ahaato ama Tiisayd ka ahaato ama tii ayagu ay mas'uuliyadda ka ahaayeen runtii ay taageeri jireen ahaato waxay u geysteen ama u sameeyeen wadanka Soomaaliya taageero fara badan waa mahadsantahay Sufyaan Sheekh Axmed xilligii gumaysiga Ingiriiska iyo Talyaaniga calan gaar ah iyo astaan gaar ah ayay Soomaaliya u sameeyeen bal faahfaahin naga sii aad baad u mahadsantahay mid ugu horeysa aan ku bilowno waxa muhiimka ah oo rabo shacabka Soomaaliyeed inay fahmaan ujeedadii uu Talyaaniga iyo Ingiriiska iyo Faransiisku ay u yimaadeen wadankeena Faransiisku mudeeru joogay ay u yimaadeen waxay ahayd in ay bedelaan diinteena to Christianize Soomaalida saasi u yimaadeen iyo inay qaataan hantida wadankeena taala waxa tusaale u ah calankii Talyaanigu uu sameeyay markii ugu horeysay ee uu yimid Soomaaliya wuxuu ahaa calanka Talyaaniga oo dhexda ay ugu jirto calaamadda Kirishtaanka oo calaamadda Kirishtaanka oo dhan ma aha waa calaamadda Kirishtaanka ee loo yaqaano crucifix quadrada ama afar geeska Kirishtaanka isleeg waxay u yimaadeen marka
in ay gaaleeyaan dadka Soomaalida ah sida caalamka intiisa badan ay ka sameeyeen waxa taariikhdu xusaysaa wadanka mesela dhulka loo yaqaan hadda Latin America oo ka kooban ilaa iyo dhowr iyo 20 wadan waxa gaaleeyay Portugiiska iyo Spanishka dadka loo yaqaan indigenouska oo Mareykanka iyo meelo kale iyo Canada degan waxa gaaleeyay Ingiriiska wadamada Afrikaanka intooda badan diimo kale haysteen waxa Christian ka dhigay gumeystihii markaa yimid annaga uma aysan suurtagelin laakiin waxay nooga tageen calaamadahoodii iyo astaantii ay ku yimaadeen oo ay rabeen inay nagu gaaleeyaan ay nooga tageen waxaan rabaa inaan runtii hore ugu sii socdo oon iraahdo midan calanka isaga ah calanka Talyaaniga ayuu ahaa calankii Soomaaliya lagu maamulayay muddadii ugu horeysay wuxuu ahaa waa calanka Talyaanigu waa guduud cadaan iyo cagaar meesha cadaanka ay waxay soo galeen calaamadii Kirishtaanka waa information oo available ah oo qof kasto binaadinay oo raba inuu baar u heli karo muddo markay joogeen oo ay arkeen xaaladii inay adkaatay 1936 ay waxay u sameeyeen Soomaalida calan iyaga Soomaalida gooni ah calanka goonidu ah wuxuu ahaa calan isugu jira saddexda kalar oo ah blue cadaan iyo guduud waxa calankaas dhexda uga sii jiray shabeelkii labada caleemood oo maantay inoogu jira astaanteena Soomaaliya iyo shabeelka labada dhinac ay noo saaran waxa kale oo calanka bartamihiisa ku jira calanka bluega ah ee halka xidig leh ee anagu aan leenahay oo dad badan oo Soomaaliya aaminsan anagu inaan samaysano laakiin aan ahayn mid anagu leenahay waa laga soo dhex saaray asiga laga soo dhex saaray waa wax available ah oo maanta qof walba oo Soomaaliya oo diyaar u ah inuu baaro oo awood u leh inuu helo waxaana la sameeyay 1936 1936 marka su'aasha dadka Soomaalida u baahan isweydiiyaan 1936 SYL xataa ma jirin SYL 1943 la asaasay marka SYL la asaasana calankii ay qaateen wuxuu ahaa calankii Talyaanigu uu keenay exactly oo ahaa blue guduud iyo cadaan waa iyaduna waa wax oo la heli karo maanta hadii loo baahdo marka taariikhda calanka Soomaaliya waa sidaas wuxuu leeyahay taariikh kale oo ka sii dambaysa oo runtii Talyaanigu waa keenay laakiin laftirkiisu xaquu ka keenay macnaha uu ka wata maxay ahayd waayo waxaan ognahay wax wadamadan westernka la yiraahdo iyo caalamka intooda dhanba ma jiro wadan samaysta calan ama astaan waxay rabtaa ahaatee oo u keena macna la'aan ay iskaga soo degto wax walba macna leeyihiin marka ayadana dabcan waxaan u maleynayaa waa Soomaaliyintooda badan waa ka dhergsan yihiin laakiin intaan ka dhergsanayn waxa lana calankani waa calan ay isticmaaleen ama isticmaali jireen maanta isticmaalaan waxa la yiraahdo secret society ama bulsho qarsoon oo wadamada westernka degan iyo ciidamada generalska ciidamada cirka ee Mareykanka kuwa generalska waxa la yiraahdaa calankan at codes and generals waliba waxa isticmaala calankeena Soomaaliya ee halka xidig leh waxa isticmaala marka uu gaaro ninka ciidamada cirka ee Mareykanka tirsan marka uu gaaro brigadier general oo halka xidig ugu horeeya uu qaato marka calankeena taariikhdiisu waa sidaas astaanta gaarka ah iyo calankaas ay Soomaaliya u sameeyeen gumaysiga Ingiriiska iyo Talyaaniga maxay ka tarjumayeen calanka uu keenay gumaystuhu oo Talyaanigu uu keenay astaamaha uu ku reebay markaas uu ka wato waxay ahayd buluugu wuxuu u taagnaa waxa la yiraahdo magic spell ama caabudida shaydaanka ama inay dadkan aaminsan yihiin in Lucifer oo ah shaydaanka ay caabudaan inuu siinayo awood ay ku maamulaan because waa dad aaminsan waxyaabo noocaas ah calaamada la yiraahdo guduudka ee calankooda ku jirtana waxay u taagneed dhiigii Talyaaniga ee ku daatay wadanka markii ay dagaalamayeen inay sameeyaan imperial wax la dhaho ama boqortooyo weyn waxay noo keeneen calaamadii Kirishtaanka oo maanta ilaa waqtigan xaadirka qayb ka ah astaanteena Soomaaliya mahadsanid Sufyaan waxaad nooga warantaa calankii Soomaaliya calanka buluuga ah markii ugu horeysay taariikh ahaan oo la hirgeliyay iyo waxyaabaha uu ka tarjumayo Soomaalida markaan dugsiga hoose dhex markaan aadaynay Soomaaliya markaan joog wax ku baranay waxaana loo baray calanka Soomaaliya in uu yahay cirka oo kale runtii markaan yaraa aadayaan isu weydii jiray sababta uu macnaha uusan macno kale u lahayn waxa kale oo la baray xidigtu inay u taagan tahay shanta Soomaaliya Djibouti Soomaalida waqooyi Soomaaliya Ethiopia Soomaaliya Kenya iyo Soomaalida koonfureed inuu taagan yahay taasi waxaad moodaa inay tahay macne runtii calanka markii la sameeyay kadib la keenay
oo calanka iyo micnuhu calanku u horeeyay markii nal ku qasbo sankan la ka galiyay markaas inaan ku qasbanaan inaan macno la nimaadno dadka u macnayno oo u turjuno inaan ku qasbanaan waxaana taas cadeynaya inay saas tahay SYL calaamada ay leeyihiin ama calanka calaamada ay haystaan waxa ku jira shan xidigood oo u turjumaya shantii Soomaali hadii marka SYL la siiyay calanka inay sameeyeen isla markaasna shan xidigood astaantooda ay ku jirto macquul maaha calanka Soomaaliya hal xidig inay ku jirto waxaana xidigtaas iyo calanku ay ka yimaadeen calankii 1936 ay Talyaanigu gumeystaha Talyaanigu uu sameeyay wadanka ayaa ay taas ka tahay waxa kale muhiim ah oo aan rabnaa inaan shacabka aan isla fahno astaanta SYL markaad maanta fiirisid waxa ku jira xidig iyo calaamada Kirishtaanka oo ay ku taalo SYL saddexdeeda gees oo kala duwan SYL ah ku taalo iyo xidigtii oo bishii sidaan kuwa marka aan baaray taariikh ahaan runtii waxa sababtu ay ahayd SYL waxay lahaayeen hami ah inay sameeyaan ama ku guuleystaan dawlad ahaan waxa la dhaho Greater Somalia waa shanta Soomaaliya oo shanta Soomaaliya markaas waxa kamid ahaa dad Christian oo diinta masiixiga haysta oo ay ku jireen dadkan yiraahdo Coptic because calaamada Kirishtaanka ay isticmaalayaan ku jirta astaanta SYL iyo calaamada Kirishtaanka ee ku jirta astaanteena Soomaaliya waa laba calaamado kala duwan midna waxa isticmaala dadka yiraahdo Coptic Christian Church oo mesela sida Egypt oo kaleeto sida Ethiopia oo kaleeto dadka degan oo leeyahay Coptiga ama qurbiyiinta Soomaalida oo taqaano oo Christianka ah waa calaamada SYL ku jirta bisha iyo calaamada Christianka isku dhex jira calaamada Christianka ee ku jirta astaanteena Soomaaliyana waxa isticmaala Greek Christian Cross waa mid ku taala calanka Switzerland waa mid ku taala calanka Georgia waa mid ku taala calanka Greega waa mid ay isticmaalaan hay'adda ugu weyn ee diinta masiixiga ama diinta gaalada faafisa ee ay ku gaaleeyaan dadka oo loo yaqaan Red Cross marka taariikhda qaabka ay nagu soo galiyeen waa sidaas Sufyaan adigoo mahadsan calanka Soomaaliya iyo astaanta qaranka muddo dheer ayay soo jirtay marka sidee ayay ku suurtagali weysay in dadka Soomaaliyeed inaysan arkin qaladaadka iyo dhaliilaha aad ku sheegaysaan calanka Soomaaliyeed iyo astaanta qaranka sidee ayay idinku suurtagashay aqoon-yahan ahaan inaad ku aragtaan qaladaadkan hadda tilmaamaysaan astaanta Soomaaliya labada dhaliilood ugu waaweyn oo ku aragnay waa saddex dhaliilo mid horta waxa waaye micnaha Soomaaliya ma ka turjumaysan macnaha waxa la rabaa wadan calaamad markuu leeyahay astaan markuu leeyahay astaantaas inay tahay astaan kicinaysa ama keenaysa qofka inuu dareemo shucuur wadaninimo astaanteena Soomaaliya kuma jirto in halakaatay cilada kale labada ciladood kale leedahay oo macnaha aqliyan iyo diiniyan aan waxay tahay diiniyan waxa ku jirta calaamadii Kirishtaanka waa qalad anagu dad Islaam aan nahay Christian waxba nagama gelin mananihin calaamadooda inuu jirto astaanteena waa wax qalad ah oo wax aad u foolxun waxa kale leedahay cilad aqliyan ah oo ah meesha ugu hooseysa calanka ama bannerka la yiraahdo oo marta labada waran oo kala jeedo oo runtii ah labada calaamadood kaliya ee Soomaaliya ay ku soo dartay inta kale Talyaaniga iska laha iyo labada caleemood oo Oliver Branchiga ah waxa mara banner waxa la yiraahdo caalamka bannerkaas waxa lagu dhigaa halku dhiga wadanku u leeyahay maxaa wadankaas lagu dhigo wadan walba halku dhigo leeyahay anaga way noo marantahay waa caddahay wax ku yaala ma jiraan waana runtii waa macnaha qaracan tragic waana waxyaabaha keena maanta dadkeena macnaha anagoo ah the most homogeneous country in the world wadanka kaliya ee isku dhow dhaqan ahaan diin ahaan midab ahaan aqli ahaan iyo wax walba sameeyno wadanka waxaana caalamka isku dhow adduunka kale to wadanka noogu soo dhow 5 qabiil 6 qabiil oo kala luqada 2 diimood iyo 3 diimood uu leeyahay oo kala duwan haddana wadankaas waxa runtii wadamada kale waxaad ka arkaysaa inay yihiin wadaniyiin jecel wadankooda ama diintooda jecel annaga haddaan Soomaali nahay waxaan ugu horeeya oo waxa ugu horeeyoon jecelna ay tahay qabiilka diinta iyo wadanimada gadaal jiraan waana sabaha keena wadankeena maanta inuu ka bixi waayo perpetual war dagaal iska socdo oo aan dhamaanaynin aanan aamini la annahay qof kasta oo maanta isku daya inuu madax noo noqdo ama xilka qabta waxa laga yaabaa maanta waxaan faleynayaa dadku inay wada fahamsan yihiin waxaan maleeyaa dadku inay wada fahamsan yihiin ninka qabiil kala ah oo adiga kugu qabiilayna duu xilka qabto si kastuu u fiican yahay waa mucaaradaad ku tahay way waxaad mucaarad ugu tahay ma qabiilkaaga arintaas waxa keenay astaamihii wadanka
oo shacbiga Soomaaliyeed ay ku soo barbaari lahaayeen inay ku jeclaadaan wadankooda in ay ku dhaliso ama geliso shucuurta ah wadaninimo inay geliso inay meesha ka maran yihiin Sufyaan laakiin astaanta Soomaaliya muddo dheer ayay soo jirtay sidee ku suurta gashay in dadka Soomaaliyeed aysan muddadaas ama ku suurta gali weysay in muddadaas aysan arkin calaamadan oo Kiristaanku astaanta ku jirta iyo qaladaadkan badan oo hadda aad tilmaamayso aqoonyahan ahaana idinka qaabka idinkugu suurta gashay inaad arrintan ogaataan muddo intee leeg ay hawshan guda jirteen marka ugu horeysa horta ma u malaynayo dadka Soomaalida dad badan oo waxa jira runtii aan aaminsanahay inay ogaayeen laakiin waxa ugu horeysay wadannimada qabiilka waa dhibaatada haysata way ma jirin qof runtii anaga ka horkeen ama groupkan hortiis u istaagay inay wadankooda xu qabtaan meeshii qabiilka xu qabalahay horta waxaan aaminsanahay mid ugu horeysa inay jiraan dad og ama fahmay ama arkay laakiin aysan waxba dhihin ma aaminsani inaan qofna arkin hase yeeshee waxaa muhiim ah oo u baahan in la xuso hadda intaan ku jirno campaignkan ama ololahan intaan ku jirnay shacabka Soomaaliyeed aan u bandhignay ee arkay arintan dadka intooda badan 90% weligood ma aysan fiirin maba ku macnaha tadabbur kuma sameeyaan dadkeenu astaamaha iyo waxyaabaha wadaninimada maba madaxooda kuma jirto dadka intooda badan xukuleen weligay ma arkin marka tusto oo uu arko leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun weligay ma arkin inay ku jirto markaas wuxuu galayaa shock iyo qaracan marka dadku ma fiiriyaan waxyaabaha u diiday inay fiiriyaanna waxay tahay because qofkii wuxuu mashquul ku yahay waxaan ahayn wadannimadi iyo diintiisa waxaan ahayn waa mid kaleeto aniga iyo groupka aan hogaaminaya waxaan arintan ku jirnay muddo runtii dheer waqti dheer aniga waxaan ka soo bilaabay wadanka Spain jaamacadda Spain Complutense Madrid markii aan dhiganayay ayaa waxaan sameeyay waxaan ka doodaynay diimaha adduunka ama caalamka jira arday kamid ah ardadii wadankaas oo region ahaan ka yimid meel la dhaho Pasca ama France iyo Spain inta u dhaxaysa ayaa wuxuu yiri Soomaalida qasab Christian waa ku jira wiil see ku keentaa anoo xoogaa xanaaqsan shucuurta i kacday markaas yiri calaamadiina ku jirtaabe Coptic waxa ku jiru yiri Christian cross itus wuu itusay markaasaan ku baraarugay calankana waxaan ku baraarugay intaan joogay Mareykanka oo aan arkay muddo badan iyadoo la isticmaalayo meelaha museumka u yaalo Confederate flagskii lagu dagaalamayo waaye ilaa maanta uu jira ayagu waxay qaateen 1920kii anagana 1936 loo keenay secret societies ama bulshada shaydaanka caabudan muddo dheer ay calankan haysteen oo caabudeen waxayna u haystaan oo rabaa dadka Soomaaliyeed u sharxo waxay aaminsan yihiin xidigtu waxay u taagan tahay shaydaanka la yiraahdo Lucifer halka xidig oo cad calanka buluugan wuxuu taagan yahay cirka marka waxay aaminsan iyaga ma ka dhaadhacsan cirka ayuu ka soo dhacay wuxuuna u soo dhacay u yimid inuu anaga nacaawiyo ama qofkii caabudo uu caawiyo marka anaga sidaas ay noogu suurta gashay Mareykanka yaa isticmaala Mareykanka hadda waxa isticmaala generalada isticmaala markuu yahay brigadier general ayaa isticmaala hadda waqtigan xaadirka laakiin Confederate-kii waa laga guuleystay groupkaas oo way ka tageen hase yeeshee waxa isticmaala secret society-gaas bulshadaas oo secret society-ga hoolalkooda ama guryahooda marka tagtid caalankaas u sur مجلس عيدمada cirka ee Mareykanka inay isticmaalaan of course ciidamada cirka ee Mareykanka saan ku sheegaba ciidamada cirka ee Mareykanka American Air Force Generals ayaa isticmaala calankan waxa la dhahaa at codes and generals isticmaala qofkii hadda maanta Google gareeya ama informationkaas waa kabiiriya hatta hada ka fiirisid is available waa leeyahay kala waa ma santahay Sufyaan Sheekh Axmed waxaad markan faahfaahin naga siisaa calanka cusub aad u soo bandhigaysaan bulshada Soomaaliyeed iyo astaanta cusub aad u soo bandhigaysaan bulshada Soomaaliyeed waxa ay ka tarjumayaan bismillaah runtii waxaan rabaa in aan isku dayo inaan sida ugu fudud u sharxo laakiin intaan sharxin waxaan rabaa in aan sheego ama aan dadka xusuusiyo sababta iyo waxyaabaha lagu kalifay inaan calanka sameeyno kasokow in calankeenu uu yahay calan aan anagu lahayn ama aan ka turjumayn kasokow in astaanteena Soomaaliya ay ku jirto calaamadii Kiristaanku markii calankan iyo astaantan aan sameeynay waxaan u sameeynay waxa la dhaho aas-aasyo aasaaskood wuxuu yahay in aan bedelno sida jacaylka Soomaalida ama waxyaabaha Soomaalidu ay jecel yihiin sida iskugu xigaan inaan dhinac kale u bedelo hadda maanta waxa ugu horeeya qofku inuu jecel yahay qabiilkiisa waxa ku xiga ama wadankii ama diintii ku xigta waxaan rabnaa marka calankani inuu suurtagal ka dhigo haddii alla yiraahdo in uu soo hormariyo jacaylka wadaninimada iyo diinta qabiilka jacaylkiisuna uu gadaal tago waa mid
midda labaad waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed khaasatan dadka da'da yar ee dhalinyarada markii ku korayaan calankan in ay la koraan shucuur wadaninimo inay la koraan shucuur jacaylka diinta islaamka inay la koraan shucuur inay fahamsan yihiin ama wax ka turjuma ayaga ay haystaan qodobka saddexaadna wuxuu yahay in shacabka ama wadamada qalaad dadka ka tirsan markay wadankeena imaanayaan ama calankeena ay fiirinayaan ama ay rabaan inay wax nooga ogaadaan inay ogaadaan oo aysan ka qarsoonaanin anagu waxaan inaan dad islaama waxaan u taaganahay oo labada kalar oo buluuga iyo cadaanka caalamka micnay u leeyihiin hadii qofka Soomaaliga aysan macno u lahayn calanka kalarka buluuga micno u leeyahay cadaankuna micno u leeyahay buluuga micnihiisu waxa weeyaan power awood ومد وحكلوا معنيه سؤالية هي geographical أهان ماشي عن كنا سومالي كتالو أي كتر جماعة إن دجنا هاي إكوادور دول برها إن لنا هاي حفت أوجو بلارن أفريقيا ونكجور خيرات أوجو بلار أفريقيا بلو جساس وكتر جماعة على عدان كي وحكي كتر جماعة معنا قيبت عدان كي وحكي كتر جماعة وحلا له purity أما نظيف نمو إيمانكي دين الإسلام كا وحنا كجرا على مدى رسولك صلى الله عليه وسلم أو استعمال وقت رسولك وجوجل استعمالي ميدبك عدانك لبداس ميدب ساسان وكان وحنا كوسي لحد جنا مركا وعالم كان كهلنا وحنا كوسي لحد جناي على مدى إسلامك أو عن أو إسلام كويها مانتي أو بشي يحدكتي بشي يحدكتي أو عالم كإسلام كو عام كويها وحنا كوسي درنا مركز أو حدكت لحد أنكو قرني كلمة الله أيامكو قرن oo runtii laga shaqeeyay oo saamaxaysa calanka hadii la gadiyo dhinacii rabbi loo gadiyo markasta in aad u jeedo Allah oo sax ee aysan ahayn mid macnaha hada dhinacan u jeedid ay tahay Allah xaq u jeedo aysan ahayn macnaha waxa looga fakaray design ahaan inay meel ka soo u jeedisid calaamada Allah in loo jeedi karo waxa kaloon ku dhignay oo aan soo qaadanay fikirkii SYL iyo fikirka Soomaaliyeed ay qabto oo shanta Soomaali wuxuu leeyahay shan xidigood oo u taagan shanta Soomaali oo kala duwan marka wuxuu muujinayaa Soomaali waxay ka kooban tahay wuxuu muujinayaa annagu waxaan u taaganahay wuxuu muujinayaa meesha aan adduunka uga naalo wuxuu muujinayaa inaan dad islaama iyo waxa annagu aan u taaganahay ama aan rabno in loo arko waxaana muhiim ah oo rabaa dadka Soomaaliyeed inay fahmaan calanku ma aha maro kaliya ma calanka adduunka waxa wadan walba calanka u surtay inuu sameeyo projection of power and ideology inuu caalamka kale tuso waxa la yiraahdo fikirka uu qabo ama waxa uu aaminsan yahay iyo awood uu leeyahay intaas waa calanka calaamadii soo hartay calaamadii waan ka fakarnay runtii dood dheer kadib waxaan isku daynay in aan dadka Soomaaliyeed inaan wixii macquul ah oo aan qaldanayn inaan meeshooda u deyno wixii macquul ah oo wixii qaldana inaan ka bixino waxaan deynaa marka sidii gaashaanka u samaysnaa gaashaanka waxa la dhahaa coat of arms oo ku dhex jiray caalamka uu ku jiray oo dusha Talyaaniga uu ka saaray calaamada crosska xibnaha ay ku jirto asiga sidaan u deyn meeshii ay ku jirta calaamadaha Kirishtaanka waxaan gelinay shan xidigood oo u taagan shantii Soomaali qaybtaas intaas labadii shabeel waa ka bixinay labadii caalamada waa ka bixinay because Talyaaniga ka yimaadeen annagana maantay shabeel si gooni aan ugu ma jirto wadan macnaha oo wax gooni uu ka turjumayo wadankan ugu turjumayo hadda oo ka duwan wuxuu uga turjumayo maroodigu wuxuu uga turjumayo libaaxu wuxuu uga turjumayo xooluhu waxay uga turjumayaan malaayga faraha badan wax ka duwan uu ka turjumayo ma jiraan wali waxaan ka doonay muddo badan inaan soo qaadano waxa aan qani ku nahay oo مثلا ملايغو kale fish kale laakiin finally waxaan go'aansanay inaan ka degno waxaan noo soo baxda marka intaas inaan u sameeyno astaantaas dusheeda waxaan dhignaa 7 xidigood oo astaanta ku dhex jirta 7 xidigood waxay u taagan yihiin 6 maamul goboleed iyo Muqdisho taasi waa subject to change macnaheedu wax taas wuxuu yahay hadii loo baahdo waa lagu dari karaa oo gobol uu ku soo biiro hadii gobol uu ka baxana waa laga bixi karaa xidigahaas waa 7 xidigood oo dahabi ah backgroundka am saldhiga dambe macna intaas waa inta dusaan qaybta dambe waxaan ka dhignay caradii cadeed oo quruxda badneed oo badeena biyihii midabkoodii badweynta Hindiya cirkii Soomaaliya sidoo eka ayaa wax u yihiin background u yihiin macnaha meesha dambe u yaalaan waxa badii ka dhex muuqda doon aan ugu talagalnay inay micnaheedu noqoto laba micno inay yeelato micnaha koowaad inay ka turjunto khayraadka faraha badan ee wadankeenu uu leeyahay ee badda ku jira
macnaha labaad in Soomaaliya ay diyaar u tahay sida laga fakaro ama qof walba wadaniyi ama qof walba madaxi uu ka fakaro baddaas dhirirka badan in la difaaco u baahan tahay si loo sameeyo very powerful naval power macnaha ciidamo bad oo aad u xoog badan in la sameeyo waxaan ka saarnay meeshii federaalka ahayd waxaan ku dhignay wadaaga waayo anagu waxaan dad Soomaaliya muhiim ma aha inaan luqadeeni tartiib uga tagno maalin basaan eray ugu soo darayno maalin dambe inay noqoto macnaha luqad laga tagay caalamka kale waxay leeyihiin dad ilaaliya dhaqanka iyo luqaduhu inaysan tirtirmin waayo dhaqankii luqad haday tirmaan meel oo socoto ma taqaan waxa tahay baabuur aan driver uusan ku jirinin oo meeshu raba iska aaday marka saas ayaan u design gareyn labadaba waa mahadsan tahay Sufyaan ugu dambeyn calanka iyo astaanta qaranka ee Soomaaliya waxa ay ka dhaxayaan shacbiga Soomaaliyeed marka rajaceenkee ayaad ka qabtaa inay ogolaadaan in calanka Soomaaliya la bedelo madaxweynaha baarlamaanka iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed rajada aan ka qabno markii aan bilaabaynay markii ugu horeysa markii aan bilaabaynay ololahan markaan bilaabaynay waxaan ka fakarnay dhinac walba oo ah waxyaabaha naga hor imaan kara caqabadaha imaan kara iyo sidii aan uga meeraysan lahayn ama aan uga iskaga xalin lahayn caqabadahaas aan soo qaadan waxa kamid ah sida baarlamaanka Soomaaliya oo kaleeto sida inaan weyno fursad aan codkeena lagu maqlo sida shacabku inuusan runtiina aqbalin waxaan ku talagalnay intaas oo dhan inaan ku socono xaalad kasta oo naga hortimaado inaan ku socono oo arintan wadaan ku talagal hase yeeshee sidii aan maleynayna way ka fiican tahay qaabka hadda maanta aan u aragno inay u suurtagali doonto hadii la yiraahdo insha Allah waxay tahay in shacabku marka hore fahmo shacabku qaato shacabku waa dadkii soo doortay dadka maanta baarlamaanka ku jira ama sanadka ku jira ama madaxweynaha iyo wasiirada hadday arkaan rabitaanka shacabkana waxay ku qasban yihiin inay shacabka rabitaankiisa ka turjumaan mid kale oo muhiimka waxay tahay dadka maanta Soomaaliya u taliya waa dad lagu soo xulay karti ay leeyihiin aqli ay leeyihiin garaad ay leeyihiin fikir ay leeyihiin iyo awood ay leeyihiin oo wadaniyiin waa laga yaabaa bini'aadamku inuu si kale u arkaan laakiin anu saan arko waxay tahay ninka maanta u taagan oo xildhibaanka ah oo wadankiisa inuu wax qabto u taagan boqolkiiba boqol sax ma laakiin wuxuu yahay waa wadani waa islaam waxaan aaminsanahay marka in aysan u ogolaan doonin shacabka Soomaaliya inuu ku dhex jiro ceebtaan maanta aan ku dhex jirno waxaan aaminsanahay in marka ugu horeysa ay fahmaan ay arintaas qaadi doonaan baarlamaanka la geey doono la ansixi doono madaxweynuhu saxiixi doono waayo waa dad islaama nin Soomaaliya ama baarlamaan ku jiro ama shacab caadi ha ahaado ama madaxweynaha ha ahaado ama ciidan ha ahaado oo diyaar u ah in uu dusha saarto calaamad Kirishtaan inay garbaha u saaran tahay inama jiro ma u maleynaa inuu jiro khaasatan ciidamada wadanka oo darajo ahaan loo siiyo ama madaxweynuhu markasta soo hor istaago podiumka ku dhagsada calaamadii Kirishtaanka ama nin kasta oo wasiiruhu calaamadii ay hortaalo maanta ku saxiixayo ma u maleynaa inay ku raaxaysanayaan ma u maleynaa inay calool u hayaan in ay si wada arintaas marka ay fahmaan waxaan aaminsanahay sida uu dhaqsaha badan in ay u hirgali doonto marka ay halkaas tagto waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Sufyaan Sheekh Axmed daawadayaal waxaa la soo gaaray gabagabadii barnaamijka kulanka toddobaadka oo uu marti inoogu ahaa Sufyaan Sheekh Axmed oo kamid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed barnaamijka ayaa waxaa dhanka farsamada iyo kaameramanka gacan iga siiyay Cali Xildoon iyadoo barnaamijkana uu soo saaray Baashi Umar Ismaaciil tan intaan mar kale dib ku kulmi doono waa Aweys Maxamed Nuur Aweys Foday oo idinku dhaafaya intaas iyo nabadgelyo